madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeed ayaa waxa uu sheegay in heshiiska ay wada galeen maamulkiisa Khaatumo iyo Somaliland aanay waxba ka dhaweyn ay u dabran yihiin buu yidhi fulin la'aan. Professor Cali Khaliif Galeed ayaa waxa uu hadalkaasi ka sheegay hadhimo sharafeed uu mulkiilaha shirkadda Star Group u sameeyay siyaasi Bile Refle Guuleed oo maanta uu ka soo qayb galay isagoona intaasi ku daray in loo baahan yahay buu yidhi Somaliland loo wada dhan yahay. dee Hargeysa iyo Burcay xifaaltanku ka dhaxeeyeen wixii weyn ee la rabo inay dadkan micno badan u sameeyaan inay Burco la geeyo awal baaba ay faraha la isku fiiqay warana ku Burco waaba dhaafno caynabaanu hawlahan ka soo qabanay bahashii sumad bayba yeelatay oo marna waxa la leeyahay Cali Khaliif iyo saaxiibkii Siilaan yaa heshiis kala saxaaday marna qoliyo reer bari oo halkaas yaa meelaha ku shirshirayay war wax dhamaaday ma jiraan war heshiis waa kala saxeexanay laakiin heshiisyadaas fulin bay u baahan yihiin reer Hargeysa hadda oran lahaydeen baashi caynaba inay dhaaftaan ka baqayna xagga iyo saraar iyo dhul aan laba gaari kareynin lala aado bahashaasu nabadda iyo wada noolaanshaha iyo midaynta Somaliland waray kuma xidhna oo ma aha xuduudka reer Sheekh Saxaaq haday tahay 25 sano ka hor yaad bahasha rakibteen waray halkii dhaafi weyday wataqura annaka macruufa noo samaynina waray Somaliland aan u wada hiilino oo reer Hargeyso ninkii baanaaya lagu fasax ninka hadhow taba oran lahaa arintaas wallaahi meelahaas ay qoliyo wax la magaf lahaayeen bal reer Hargeyso idinka la casumaadu haynoo dambeeyeen markaynu guuleysano ee hawlaheena isku dubaridano markaas aynu is casumi doonaa reer Hargeyso Allahumma hal ballaqtu fashad reer Hargeyso warka idin soo gaarsiiyay war wax dhamaaday ma jiraan war haday daacad idinka tahay Somaliland la wada dhiso war u hiiliya hadaydan u hiilinayna hanagu eedaynina. Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Stab TV Hargeysa.